kulanti wacan asxaabi meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka. Maanta waxaan soo qaadan doonaa filimka weyn ee The Bank Tree kaasoo shalay Jumcadii India tiyaatarada la saaray iyo qaabka uu ku furmaanto Sabti ah. Filimkan ayaa shalay tiyaatarada India la saaray waxa uuna la kulmay caqabad weyn taasoo ay curyaamisay ganacsigiisa weynaa ee filimkan laga filinayay, wuxuuna keenay lacago u dhexeeya 22 ilaa 24 karo qiyaas ahaan. Lacagaha ma ahan kuwo la hubo waayo waxaa dhib noqotay aruurinta xogta rasmiga ah ee lacagaha uu filimkan maalinta koowaad keenay maadaama waddanka rabshado ka jiraan xaalkana qasan yahay. Sida lagu helo xog sax ah ma sahlana, sidaas awgeed lacagahan way isbedeli karaan oo intaa way ka badan karaan ama way ka yaraan karaan. The Bank Tree ayaa ku soo aaday xilli India ay ka jiraan mowjado dibadbaxyo iyo bandow, waxaana arrinkaas sababtay in magaalo walba filimkan ganacsigiisa ka goosato qiyaastii 15 ilaa 20 boqolkiiba lacagihii uu keeni lahaa. The Bank Tree ayaa laga filayay in maalintiisa koowaad uu keeno ugu yaraan 30 karoor, balse taasi ma dhicin, waxayna rabshadihii dhacay filimkan ka goosteen qiyaastii 6 ilaa 7 karoor, waana lacago badan uu filimkan keeni lahaa haddii rabshadahan aan dhici lahayn. Waana ka xunnahay taageerayaasha Salman Khan. Mar kale akhbaar fiican ma idin hayno waayo sababtoo ah filimkan maanta Sabti ah waxa uu ku furmay qaab hooseeyo, waliba qaabkii shalay oo kaleeto ayuu ku furmay isagoona guud ahaan ku furmay 20% ilaa 25%, halka tiyaatarada multiplex-ka ah oo magaalooyinka waaweyn ama magaalooyinka lagu talagalay uu shalay kaga furmay 30%, saakin kaga furmay 20%. Hoos u dhacan The Bank Tree qabsatay ayaa salka ku hayso xaalad amni waddanka India ka tagan, taasoo imaaday kadib markii sharciga jinsiyadda dalkaasi wax laga bedelay iyadoo dadka aan muslimka ahayn balse waddanka joogay muddo 6 sano sharciga loo oggolaaday. Awalna 11 sano la isku siin jiray, balse dhibka wuxuu yahay in muslimka waddankaasi qaxootiga ku ah la faquuqay, isla markaasna aan la oggolaanin in sharciga waddankaasi arrintaasoo sababtay dibadbaxyo ka dhan ah sharciga cusub, waxaana gobollo badan oo India ka tirsan gaar ahaan waqooyiga India lagu soo rogay qiyaastii xilli hore. Lacagaha uu keenay ama lacagaha uu maanta keenayo The Bank Tree waa mid adag in laga hordhaco markii loo fiiriyo qaabka uu ku furmay, waxaana suurtagal ah in maanta gelinka dambe sare u kac wanaagsan sameeyo ama xaalka sii xumaado.